kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasto daafaha dunida aad ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan ugu talagalnay munaasabada sanadka cusub ee 2015 hadaba daawadayaal meel kasto joogtaan cayroole iyo caananug waxaan idin leeyahay ilaahay sanadkaas sanadkiisa caafimaad qab cimri dhar haynagu gaarsiiyo waxaan leenahay sanadkan wada sugayno soo dhaw sanad wacan oo wanaagsan sanad wacan oo wanaagsan weyne haka dhigo amiin sanad wacan oo wanaagsan waatahay daawadayaal mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay sanad wacan oo wanaagsan ilaahay sanadkaas sanadkiisa caafimaad qab iyo cimri dhar bahaynagu gaarsiiyo hadaba daawadayaal hadaynu barnaamijkeena u guda galno barnaamijkaygu sidan horeba idinku soo sheegay wuxuu u qaybsami doonaa dhowr qaybood qaybta ugu horeysa oo noqon doonta qaybta qoobka ciyaarka waxaana inoogu ciyaari doona fanaankayga akteerkayga danseerkayga reer Jabuuti Sharmaake Ciise Xasan oo isagana kulan la yeeshay wareysin aan ka qaaday isagoo ah hal abuurkii filimka Jabuuti My Society oo muhiimada siin doono barnaamijkayguna inta badan uu ka hadli doono filimkaas qaybta labaadna waxay noqon doontaa Jabuuti My Society filimka ah oo diirada ku saari doono sida hawluhu kala dhacaan iyo aktarin badan oo kala duwan aan ku soo cazumay wareysin aan la yeeshay qaybta saddexaad waxay noqon doontaa fanaanka Abdidoon Ciise Xasan oo ku soo marti qaaday studio-hayga oo wareysi la yeeshay sidoo kalena hees ku saabsan sanadka cusub inoogu qaaday isaguna hadaba daawadayaal bal qaybaha kala duwan intaan u gudagelin waxaan idin soo gudbinayaa qaybtii ugu horeysay iyo sida wuxuu dhacayaan iyo Sharmaake Ciise iyo qoobka ciyaarkiisa bal daawasho wanaagsan isha ku wada qabta aan wada eegno daawadayaal When you see a woman with a bishaka, you gonna know. Are you ready now? Baby girl, show them. Show them. Mr. Flavor Body shake it, shake it. Shake it, shake it. Shake it, shake it. Shake it, shake it. Baby so fine, Africa one badima, baby so fresh, Africa one badima, baby so sweet, Africa one badima, baby so fine. Uku para na demo mano demo.
man with some share. You don't know. Are you ready now? Yo, show them. Show them. هيدا qaybtaasna waxa qaybtii ugu horeysay ku fureenay barnaamijkeena aan ugu talagalnay munaasabada sanadka cusub ee 2015 hadaba daawada waxaan filaynaa aad uga bogateen amba aad ula dhacdeen danskii meesha ka dhacay washama ka ciisay nooga ciyaaray isagoo danska reer galbeedka aad ku ciyaaray sidoo kale aan iloobin dhaqamadii ka jiray geeska Afrika haday noqoto bariimoodii haday noqoto gaantadii haday noqoto walihi isagoo ku dhex daraya ayaad si fiican aad uga bogateen kulli waxbayaan hadalku ila sii dheeraanne inagoo wali barnaamijkeena ku sii guday jirna bal aynu kaana dhinaca qaybtii labaad ee ugu talagalnay munaasabada sanadka cusub waxaan diirada ku saari doonaa qaybta labaad filimka Djibouti My Society oo ahlaaburka ka yahay Sharmaake Ciise Xasan oo ah wiil yar oo dhalinyaro ah oo reer Djibouti isagoo isku keenay amba aan wareysi la qaatay sidan hore bay idinku soo sheegay actorinta filimka ka dhex muuqday ee aadka looga xiiseynayay waxaan imikana aan idin gudbinayaa qaybtii labaad iyo hadaladii wareysiga sidii u dhacayeen daawasho wanaagsan Show them. Mr. Flavor Bodion. Shake it. Shake it. Shake it. waatahay Sharmaake aad baad mahadsan tahay kulli intaan filimka aan diirada saarin waxaan rabnaa inaan taariikh nololeedkaaga oo kooban aad dadweynaha aad isbarto oo u soo jeediso taariikh nololeedkaaga bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh su'aal qaaliya filsan aad baan mahadsan tahay haddaan soo koobo taariikh nololeedkaaga waxaan ahay dhalinyarada Djibouti nin kamid ah dhalinyarada Djibouti waxaan ka shaqeeyaa Djibouti Telecom ma ka shaqeeyaa waxaan ku dhashay waddanka Djibouti jaamacadda waxa ka kala jibiyay jaamacadda Djibouti saawig soo tayna filika Djibouti My Society ani asxaabtay ayaa ku wada jira aktarada xagga nolol fadhiya inkastoo ana shaqada ka sheegtay ma fiicno laakiin waxay dadku arkayaan oo iska arki doonaan insha Allah وارنتاسي بيننا معها كل واحد هاي أحلابور كيف فيلمك شرماك سواش كوبادن كويدينا واحد هاي أديك فيلمك السماعي وأنا تقول شرط فيلمك أكتر أنت كميت هاي مركا فيلمك قصة وحنبارسين وام حي فيلمك قصة وحنبارسين وحويان وحقدتك كفهمي كريان با لو تيتر تايتل عوان كيسة أيا أبا جيبوتي ما سوسيتي هدافكي هو يكون شيء جيبوتي شعبي أمبا برشديدي marka wuxuu ka shaqeynaa bulshadu ka shaqeynaa bulshada waa tahay hadeen inta kaga iman su'aasha koobaad bulshada laakiin kulli qofka wuxuu baa ku dhaliya filimka inuu abuuro amba inuu heeso hubigaaga hadinaad actor noqoto amba aad noqoto hal abuur heeso waliga ma isku dayday inaad sameyso maxaa ku dhigay balisha waxa igu dhaliyay inaan film waxayo dadku badigooda waxay ugu garanayaan filsanay saawogsoontiid danska ay ugu garanayaan dansku aan la waxeeyay fanaaniin waaweyn alla weyn oo Djibouti sida walaalkay oo kala Abdullah Ciise Xasan oo la bilaabay 2004 10 sano ka hor markaan dhiganay jaamacadda iyo xanantay wala garanayada Soomaaliya ka soo joogtay garasa fanaanka qaaliga Abdiraxmaan Saciid xanantay oo la waxay barnaamij fanaaniyo ma khair aan wal ciyaarina ma khair qulumbi
marka laakiin hobbigii waxay ku dhaliyaan oran karayaan dee maxaan ku rahaa shacab jacayl dadnimo iyo sugaantan ama fankan oo ku dhex jiro ilaa yaraantay kulay sidaan wada ognahay Sharmaake filimku hawshiisu amba kharashkiisu way badan tahay waxa jirta kulay dawiil yar oo dhalinyaro tahay halkeed ka keentay lacagtaas oo dhan aad filimka aad gelisay maalgelin ma cid ba kugu taageertay ma cid ba ku garab qabatay mise kaliya adiga familygaaga lacag haystay oo ku caawiyay hata runtii filsanay su'aal qaaliya oo aad baan u sugay su'aasha dadku si walaal soo yihiin ba filimada Mareykanka oo daawanaa waxa maalgeliya de producteur produced ba jiraan maalgeliya acteerada ama ninka qoraaya ama ninka jilaya iyo kuwa maskeena laakiin aad baa wuxuu yahay wadanadeena Afrikaanka ama wadanadeena wax ku gacan qabanaya way yar tahay marka taana been ma soo sheegtay hadalka oo run waxaan imaageliya qofka imaageliya kuma arkay sababtoo alxamdulillah maanta waan shaqeeyaa saan kugu sheegay Jupiter kama ka shaqeeyaa laakiin ma lacagta warun lacagta aan wala geliyo filimka oo مساعاتي لعق قرات وما شقانيسو dadka ay taaleeg oo garu joogsan waaya filku waxma tareen marka dadka ay taaleeg baa kuma handaqaya intii garu joogsadeen qof lacag siiyay ta ma jirto laakiin lacagta badan waxa ku baxaysoon inta sanadood kharashka la isticmaalay ma 5 sanadood baa filkan wadnay waa 2 milyan iyo 500 yaa naga baxday laakiin waxa kuma handaqaya dadka ay taaleeg ay soo garu joogsaday aad buu masii